الحمد لله horta ilaahay baa mahad leh maanta xorriyadeedii noo soo celiyay marka xigta waxaan u mahad celinaynaa dawladda xukuumadayada ugu horeeyay mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynahayaga dhammaan xukuumadda oo dhan shananka ciidamada waxaan u leenahay aad baad u mahadsantihiin saldhigyaan ku jirnay sida fiican noola dhaqmay mucaarad iyo maxaafadba waxaan u leenahay intii ka hawl gashay iyo asxaab iyo family dhammaan intii ka hawl gashay socodkayga siideenta waxaan leenahay mahadsantihiin marka xigta waxaan mahad celinaynaa familkayga oo na garab taagnaa asxaabta oo na garab taagnay saxaafadda oo naga maqnayn qiimo oo markasta noo yimid dhammaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin inta xigta dee mataanteeda ay ugu dari doontaa fanaaniintana waxaan leeyahay intii noo timiday intii nooga soo ducaynaysay iyo intii intaaba nala murugaysnaydba aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin ummadda islaamka meel kasta joogaan waad mahadsantihiin dhammaan saxaafaddana waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin si fiican aad noola shaqayseen waxaan ku wareejinayaa mataantaydii weeyaan marka koowaad waxaan mahadcelinayaa ilaahay oo subxaana watacaala fududeeyey maanta sii deynteeda inay suurta gasho waxaan kaloona mahadcelinaynaa dhammaan xukuumaddayda somalilan ugu horreeya madaxweynaheena somalilan Muuse Biixi Cabdi iyo dhammaan maxaafid mucaarid intii la garab taagnayd iyo asxaabtii yeeladii ka qayb qaadatay sii deynteeda dhammaantood aad baan ugu mahadcelinaynaa saxaafaddana sidoo kalena fiimi ugu horreysana aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaantiin aad baan idin salaaminaa meel walba joogtaan intii niyadda nooga soo ducaysay intiina garab taagnayd giddigiinba mahad baan idin jecelaynaa insha allah takala wax dhibaato qabnay ma jiro waxaan ahay dad carabkood iyo ciidooda hoos xidhan waxaan bila xorriyad ahay inaanu dareemaynin ma jirin alxamdulilah rabbil caalamiin dad waxa jira faafiyay waxa lagu xidhay waxyaabo kale iyagoo ku dhex jira waxyaabo xunxun oo sheeko kiiskoodu wuxuu yahay wax qaldan iyagoo isticmaalaya waxaan leenahay anagoo wada jira kiiskina lagu soo xidhay adduunyada meel kasta waa laga ogyahay taas mid isqaranaysa ma waxaanay ahayd waad la socotiin baan u malaynayaa walaalkii Cabdi Fataaxna aad baan ugu mahadcelinaynaa aad garabkayga midig garbaha taagan dhammaan sabcidina kama maqnaa maxkamadii aynu wadamaantood isku duubni baan ugu mahadcelinayaa Soomaaliya dawladda oo dhan xataa maxaa naga dhimaqaa bes way dhamaan